السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ka imid library-ga qofaan aqoonin ay istaajiyay. Sometimes waxaa dhici karta qofaan aqoonin markuu kula hadlo dadka qaar inay safareen leeyahay, laakiin waxaan rabaa naftayda iyo naftaada inaan xasuusiyo diinteenna waxay nambaraysaa inaan furfurnaano. waa dawla cadeynta xitaa waa sadaqa lagu yiri waa smile is charity. marka waxay weydiisay gacanta maxaa kugu jira, anna waxaan u qaatay cilaankayga inay ka hadlayso. waxaa ila this is xinna, I'm trying to explain xinna rabina u sharax ali. No xinna waa naqaana. Okay, what's in your finger? Oh, my finger, right? Okay, this is tusbax. I try to remember ilahi abuurtaan ku xasuustaa. tusbax baa la dhahaa, magacyadiisaan akhriyaa. Okay, that's very nice, thank you. intaa kaliya uguma tegina waxaa idhi okay, can I ask diinta aaminsan tahay? waxay tiri diinta waa liigu soo koriyey masiixi, laakiin hadda waxba ma aaminsani. waxaan idhi ilaahay ma aaminsan tahay? yes tiri ilaahay waa aaminsanaa. ilaahay waxaan idhi lama dhalin, wax ma dhalin. markii aad baryayso waxaan ka codsanayaa inaadan ku baryin wiilka ciise iyo waxa ay ku barbaryaan. long story short, she said no aniga God kaliyaan ku baryaa. okay, waxaan idhi ma ogtahay dadka shawaadiinta caabudaba shawaadiintooda inay God ku wacaan. ilaahay wuxuu qabaa 99 magac. waxaan tusay aabkayga 99 names of Allah. wow, this is very interesting. saddexda hore ka akhris please. waxaan idhi scroll up, si akhri baa idhi ilaa 99 ka magac. way akhrisay. wallahi I was looking at her face markay akhrinaysay, way qashuucday. that shows you qalbigan rabbi baa abuuray. waxa loo abuurayna caabudaantiisa waay. as much as you want inaad ka fogaatid ama aad u dhawaatid, qalbigan mar walba ilaahay abuurtuu ku xiran yahay. anyways, waxay la baxday السميع البصير الوهاب السلام iyo الحكم, the judge. waxaan idhi this is very beautiful. I'm glad inaa intaas la soo baxday, laakiin haddii aan ku dhihin hal kala bax intaa shantaa la soo baxday kee kala bixi lahayd? it's very hard. tiri magacyada dhan waa ka helay. alwahaabaan la bixi lahaa. you know the meaning of alwahaab, guys? waxaa dhici karta diinta in lagu dhalay qur-aankana la xafidsiin, laakiin ilaahay iyo saan u caabudayna iyo magacyadiisa inaanan weli baran. alwahaab is the giver, the generous giver. he gives without return. asaga wax walba na siiya, waxna nagar ma rabiyo inaan u celino. waxaa dhici karta daa maanta ani wax ku siiya inaan beri wax kaa rabo, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala every single day life uu na siiye, caafimaad uu na siiye, everything uu na siiye. waxna nagama rabo, welina waa na siinaya. ku caasi caabud weli wuu ku siinaya. look how generous it is. maasha allah, waa ku faraxsanaa maanta gabadha inaan baray alwahaab. ilaahayna ku bari baan idhi mar walba alwahaab. waxay soo download garaysa 99 ka magaca ilaahay, kaas baa hanuunin doona insha allah. diintan mas-uuliyad baa kaa saaran. please be proud. ku faan diintaada, ummadana gaarsii. thank you very much. bye guys.